markaad joogtid gudaha Soomaaliya si dhaqsi ah kuuguma soo dhacayso inay jiraan dhalinyaro hal abuur ah oo haddii ay heli lahaayeen qalabka lagu sameeyo maadada uraniumka samayn lahaa hubka aadka wax u gumaada ee xilligan dunidu ku faanaysa ee nuclear. sidan ayay ku bilaabatay horumarinta farsamada gacanta ee Cabdulaahi Cusmaan Daahiye oo ah wiil dhalinyaro ah waxna ku bartay gudaha dalka Soomaaliya oo soddonkii sano ee la soo dhaafay ku jirta burbur dhan kasta leh haddana dhalinyarada aqoon-yahanka kama quusan wax soo saarka qaar baa diyaaradaha wax duqeeyay iyo kuwa xamuulka kiciyay iyagoo aan haysan warshadaha casriga ee caalamka balse maanta sheekadeenu waa ay ka duwan tahay. ma isweydiisay in gudaha Soomaaliya lagu soo saari karo gaadiidka dadweynaha iyadoo aan la haysan warshadaha horumarsan ee caalamka? haddaba daawade su'aashaas jawaabteeda oo kugu filan innaga ayaa ku sii doona ina soo raac. waxa ugu weyn horta waa waajibaad isaaran maadaama maadadii ama faculty aan bartay anigu yahay engineering qaasatan mechanical engineering. Cabdulaahi Cusmaan Daahiye sanado hore ayuu ka qalin jibiyay mid ka mid ah jaamacadaha dalka oo uu ka bartay maadada mechanical engineering-ka kadibna waxa uu ku dabaqay farsamo si uu uga miro dhalay takhasuskiisa. maadadan ma ahan maado theory ama maado iska caadi ma ahan waa maado adag waa maado technical waaye oo u baahan shaqo adag waana baahi weyn oo wadankeenu maanta ka jirto farsamada gacanta waana waxa awoodno oo aan arkay oo aan qaban karno inta hadda aan qabanay ka badan ba aan sameey karno marka soo jaanisa ay noqotay inaan ku dhiirado cilmiga aan bartay iyo fursadii wadankeena taalo inaan sameeyo ugu yaraan waxaan ka qabtay because anagoo wadankeena wadan ilaahay barwaaqo siiya ama nimco siiya ee tahay haddana xaqiiqatan kama faa'iideysano oo waxa jiro wax walba oo wadankeena waxba u fudud aan sameyn karno dibidan laga keeno marka soo wax macnaha noo sameeynayo waxay tahay anina macnaha ay sameeynayo wax wadanka laga soo saaray oo wadankeena soo saaray oo isla wadankeena ka shaqeynaya ama laga isticmaalayo. halkan waxa laga soo saaraa mootooyinka dalka dibadiisa laga soo gali jiray gaar ahaan mootada badda. waxa kale oo jira oo halkan laga soo saaraa qalabka caragadiska xilliga dalgashada beeraha. sidoo kale waxaa jira qalab kale oo loogu talagalay in mootooyinka lagu xiriiriyo kadibna xamuulka dadku ay ku qaataan. Cabdulaahi Daahiye waxa uu tilmaamay in markii uu bilaabay hal abuurkan dadka qaar ay ka niyad jebinayeen laakiin markii uu ku guuleystay ay ku noqotay wax la yaab leh oo aanay ka filanayn. inta badan dadku way ku niyad jebinayaan waxay ku leeyihiin way adag tahay qof markay arkaan qof wax soo saaray wax sameey ama waxa soo saaray markay dhacdo way kula yaabayaan waxay ku leeyahay niyo waqtiga iska luminin oo waxaad wada kaftan ciyaaraha wada oo really ka ma ahan oo ma awoodid ma sameyn kartid soo marka anaga wax kalsoonidina geliya waxay ahayd markii barnaamijkaas aan bilaabeen raggii nidhi jiray niyo waxaan sameeynaysan iyo waqtiga luminaysan nidhi jiray ilaahay wuxuu qadaray biidnillaahi tacaala muddo kadib markaa projectan ku guuleysanay qaarkood inay dhahaan niyo projecti indiki ma aadan sameyn dibida ka keenteen. kumanaan kun oo aqoon-yahano ah ayaa ka soo baxay jaamacadaha dalka balse wax yar oo ka mid ah ayaa ku dhaqaaqay sidii waxuuna ugu darsan lahaayeen daraasadii tobanaanka sano ee la soo dhaafay ay soo wadeen. ma fududa inaad ku dhiiratid soo saarista waxaan horey looga filanayn gudaha Soomaaliya balse markan waxaa soo ifaysay fifaalaha guusha jiilka soo koraya haddii ay helaan dawlad taageertana dunida ayaa ka dukaamaysan doonta. Mukhtaar Cabdi Ciise Macdoor baahinta qaranka Muqdisho.